banaanbax looga soo horjeeday go'aanada iyo soo jeedinada lagu tarxiilayo dhalinyaro iyo caruur muddo dheer ku noolaa dalka Sweden ayaa waxa uu ka dhacay degmada Eskilstuna ee dalka Sweden. Dad aad u fara badan oo go'aanada dawladda ka soo horjeeday ayaa waxay shalay isugu soo baxeen ka soo horjeedka guriga looga arrimiyo degmada Eskilstuna. Banaanbaxan oo ay soo qaban qaabiyaan xisbiyada mucaaradka ee dalka Sweden ayaa waxa ka qayb galay dad aad u fara badan kuwaas oo muujinaya dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin dhalinyarada ajaanibta ah ee dawladda Sweden ee tarxiilayso. Waxaa xusid mudnayd intii banaanbaxa socday inay ka qayb galeen wakiilo ka socday ururka Bisha Cas, kaniisadaha, xisbiyada mucaaradka ee dalka Sweden iyo ururka isutaga macallimiinta dalka Sweden. Solveig Lundström oo ka socotay ururka Bisha Cas oo banaanbaxa ka hadashay ayaa sheegtay in tarxiilka ay dawladdu ku sameynayso waalidiin iyo caruur waddankan ku noolaa waqti dheer ay tahay mid rajo dhig ah, iyadoo intaas ku dartay in dadkaasi Sweden ay u ahayd gurigooda sanado badan sidoo kalena ay shaqo iyo qoysas ku haysteen. Ann-Sofie Knutsson oo ka socotay ururka Sisters in Business in Eskilstuna oo ah urur caawiya dumarka ajaanibta ayaa sheegtay in go'aanada dawladda ee tarxiilka uu keeni doono culays ku yimaada shaqaalaha caafimaadka. Cecilia Rohberg Noor oo iyadana ah gudoomiyaha ururka isutaga macallimiinta Sweden oo iyadana ka hadashay banaanbaxa ayaa sheegtay in wax aad looga xumaado ay tahay in la tarxiilo caruur iskuulo ku jiray. Waxayna xustay in go'aanada dawladda oo ay ku tilmaantay kuwa aan macquul ahayn ay saameeyeen caruur iyo ehelkooda ku xeeran. Waa wax aad looga xumaado marka rajadii mustaqbalka ay hubanti la'aan noqoto. Sidaas loogu sheegi karaa koox arday ah in ardaydii asaagooda ah ay isku galaaska ahaayeen la tarxiilayo. Sidaas waxaa tiri Cecilia Noor, gudoomiyaha ururka isutaga macallimiinta dalka Sweden. Intii banaanbaxa socday ayaa waxaan la kulanay Macallin Cabdirasaaq Xuseen oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool degmada Eskilstuna. Wuxuuna inooga warramayaa waxyaabaha uu daaran yahay banaanbaxa maanta ay isugu yimaadeen dadka ku kulmay degmada Eskilstuna. Waxa maanta isugu yimid magaalada Eskilstuna dadweynaha magaalada Eskilstuna oo ka mudaharaadayay siyaasadda ku wajahan dadka maaragtay ajnabiga ama dadka soo galootiga ay waddanka Sweden gaar ahaan dhalinyarada waddankan ku koray wax ku bartay ka shaqeeyay oo hadda dawladda garabka midig iyo xisbiga SD waddanka xukuumaha ay go'aansadeen in dalka dib loogu celiyo inkastoo halka ay ku barbaareen. marka halka mudaharaad ayaa ka dhacay aad u wanaagsan xisbiyadu ay ka soo qayb galeen xisbiga Milyo Partiyad oo aad iyo aad active uga ah arrimahaas ayaa halka qayb ka ahaa xisbiyada kale oo Venstre Partiyad, Social Democrat iyo Center Partiyad ayaa iyaguna qayb ka ahaa dadweynaha iyo arrimaha bulshada ayaa qayb ka ahaa anaga waxa halka qayb ka ahaa Maxamed Cabdiqani oo ah group leader ama hogaamiyaha xisbiga Milyo Partiyad ee magaalada Eskilstuna ayaa ka mid ahaa dadka halka ka hadlay oo aad iyo aad ugu nuuxnuuxsaday sida aan uga soo horjeedno ama dadku uga soo horjeedaan dhalinyarada la dhoofinayo oo ah mustaqbalka waddanka Sweden. Dhinaca siyaasiyiinta mucaaradka waxaa madasha ka hadlay xildhibaan Maxamed Cabdiqani oo xisbiga Milyo Partiyad u fadhiya baarlamaanka degmada Eskilstuna. Xildhibaan Maxamed oo noo warramay ayaa sheegay in xisbiga uu ka tirsan yahay uu si weyn uga soo horjeedo go'aanada dawladda ee tarxiilka dadka. wuxuuna sheegay in ay ka sii shaqayn doonaan sidii loo joojin lahaa go'aanadaas ka dhanka dad bini'aadam ah oo muddo dheer ku noolaa Sweden isdhexgal sameeyay bulshada Sweden qayb muhiim ah ka ah. Människor som har levt, arbetat och etablerat sig med permanenta uppehållstillstånd får nu se hela sitt liv gunga. arrimaha siyaasadda cusurnimada ku salaysan ee la rabo in muxuu ahaay lagu tarxiilo oo lagu musaafiriyo caruurta dhalinyarada hadda soo koraysa iyo guud ahaan siyaasadda macnaha oo 4 sano ugu dambeysay waddanka Sweden lagu maamulayay oo ah muxuu ahaay xir hala dhoofiyo hala tarxiilo ah. marka dad badan oo runtii waddanka ala noolnaay ayaa ka soo qayb galay haday noqon lahayd qaybaha kala duwan oo diimaha macnaha kaniisadaha way yimaadeen ka soo qayb galay muxuu ahaay siyaasiyiinta oo muxuu ahaay xisbiyada Center Partiyad iyo Venstre Partiyad, Milyo Partiyad iyo Social way joogeen xisbiyada qaybaha midig ayaa meesha ka maqnaa oo maadaama ay dawladii siyaasadda laga mudaharaada qayb ka yihiin marka si fiican ayaa runtii lagu soo qayb galay
هو برنامج aad u qurux badan oo runtii muhiim ahayd oo ku muujinaya dadka Swedish-ka in siyaasadan iyo lagu muxuu ahay lagu dhaqay wadanka inay tahay arrin aan wanaagsanayn oo ay la heli karo isbeeriyada hadda aan joogno isbeeriya ka qurxoon ka fiican oo dhisayso wadajir iyo nabadgelyo iyo wada noolaansho oo ku dhisan tahay ixtiraam iyo muxuu ahay iscaawin ay ku dhisan tahay aysan ahayn oo kala tag iyo isnaceeb iyo kala qiimo bulsho aan ku salaysanayn marka barnaamij noocaas ayuu ahaa si fiican loogu soo qayb galay dadka shacabka ahaa ee yimaaday ee Soomaaliyeed halkan ayagana aad bay ugu mahadsan yihiin runtii kaalintooda ay qaateen marka waa salaamayna dhammaan bahda meediyaha salaad iyo asxaabtiisa insha Allah aad iyo aad u mahadsantahay Ilwaan Xaabdi Qani siyaasiyiinta kale ee ka hadlay banaanbaxa ayaa waxaa ka mid ahaa Åsa Kullgren oo ka socotay xisbiga Social Democraterna Maria Forsberg oo ka socotay xisbiga Vänsterpartiet Fredrik Andersson iyo Martina Johansson oo ka socday xisbiga Centerpartiet isku soo wada duub banaanbaxa ka dhacay degmada Eskilstuna ee ka dhanka go'aanada tarxiilka ah ee dawladda Sweden ayaa wuxuu ahaa mid si weyn u muujiyay sida ay dad badan oo ku nool dalka Sweden oo isugu jira ajaanib iyo Swedish ay uga soo horjeedaan go'aanadaas aan macquul ka ahayn ee ay dawladda Sweden kula kacayso dadka ajaanibta